فصبح تصبيح صو إلهي حمكهف ملتبسا بحمد ربك أدقى كمر يا مسكون ديهية الله أمانتيس وكن من الساجدين انت سجود يسي إلهي فودر لك ودق يسرى كم دقر علماء دو waxay dhahdaan maxaa ضيق الصدر inta laga waramay loo yiri fasabbih waxay dhahdaan huwa tiriyaq wa dawaa yustashfa bihi waxa lagu caafimaad waxa way markii xanuunka loo sheegay dhibta haysata ayaa ilaahay yiri sida yeel sida nabiga la yiri yeel bay culimadu leeyihiin waa sida laabtu ku caafimaado walidaalka ba quraanka meelo badan waxa ku soo arooray قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون أما فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا آيات بدن بصاء أروري والنبي عليه الصلاة والسلام دذلك ودين توهيي يدبت لقله ريمي يعرينك ودريم يوضة المامية إذا وحي علماء ليه عريريغا waxa lagaga baxaa laabta qofku ay saafi noqotaa qalbigiisa ay tumeenaan ku gala raahatul bali wa nafsu ku hela wa masaa'il kan ilaahay tilmaamay subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ama tasbih ilaahay oo tasbihsato iyo adigoo inta sujuudsan ama inta tukanaysa ku biira quraanka markaa meel kasta ama meelaha ugu badan ee nabiga la farayo in dhibaatooyinkaasi la kulmayaan waxa la farayay ama salaad iyo tasbiix nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiiska saxaabadu ay warinayaan uu ku tilmaamayo idaa xazabahu amrun baadara ila salaah haddii uu arrin dhib geliyo haddii warwar uu ku dhaco haddii wax mashaakila la kulmo بادر إلى الصلاة بالليل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة دو دق جري صلاة دو دق جري سيدا وقيت بقى إلهي القرآن كوحكوت المامية قرآن تربضا والصبر هي تصبيح شيئية فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فصبح وأدبار السجود في سورة قاف في سورة غافر إلهي وحليه فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار في سورة طور إلهي وحليه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فصبح وإدبار السجود وإدبار النجوم في سورة الإنسان فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صور كائن صور آخرنا يوردن الله سبحانه وتعالى وحو النبي سي محمد عليه الصلاة والسلام وطل ماميا وحا وكلا كل ما يددكاسي إنا يهين وحا عديدي قلينيا waxay ku hadlayaan wax xun inuu yahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam rabbi wax ka sheegiisa iyo diinta wax ka sheegeeda inuu cidhiidhi dareemi doono dabeetana waxa loo tilmaamay sabir tasbiixsana ama tuko suwar kalena iyadoo salaada iyo sabirku isku xidhan yihiin wastaciinuu bisabri wasalaa ilaahay uu ku tilmaamayo waa soo aroortay waxaa kaloo soo arooray نبي الله يونس ذنون وتلكي مركو نبكر كل ما يكتجي يسوع عريسا ومودا يننا إلهي وقبرين سي مفسرين تلمامان ودا بيتنا بدتجي دون فولي سكستبها النقطة إسقى سهمي وكودعي دون تهلا خفيفية اللي يري نبي الله يونس دون تلقى توري dabeetana uu cunay ama iltiqaa buu libqiyey nimiri xuut weyl ayaa libqiyey alla wuxuu tilmaamayaa meeshaa cidhiidhiga markuu galay waa cidhiidhi halkii u dambaysay
baddu marka hore ileen geed la cuskadaana tahay haddaad badweynta ku hafato marka hore aanad nolosha laga quustaa haddana haddaad bahal calooshii sii gasho hadaa walba bad ku jiray haddana bahal calooshii aad sii gasho waxaynu odhan karnaa waa meeshii u dambaysay ee nolol lagaga quusan lahaa halkaa markuu galay baa ilaahay yidhi wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi dulumaat mugdiyadaasuu ka dhex dhawaaqay baa ilaahay yidhi muxuu ku dhawaaqaya waxay culammadu yidhahdaan habeen madow oo bad madow oo bahal calooshii uu ku jiro ayuu dhawaaqay oo maxay leeyahay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin wuxuu leeyahy laa ilaaha ilaa anta ilaw keliga ayaa xaq lagu caabudaa subxaanak erayanuu soconayna waa ka subxaanak rabbow xumo ka hufnaanta ceeb adigaan lahayn innii kuntu min aldaalimiin waxa uu qiranayaa qofka muslimka cabd innahu awaab addoon waa u nicmo badan yahay isagu sulaymaan waana awaab baa la yidhi mid soo noqosho badan cagsigiisa waxaa ilaahay tilmaamayaa nebi kale oo imtixaan xanuun iyo dhib lagu imtixaamay oo qur-aanku aanu wax kaleba ka sheegin dhibtii soo gaadhay mooyaane nebiyullaahi ayuub meel kastoo qur-aanka ayuub uu ku qoran yahay inta badan waxaa laga warramayaa uun imtixaankii ku dhacay axaadiista sunnaduna waxay tilmaamaysaa 18 sano inuu bukay oo imtixaankaasi ku jiray isna wuu sabray wixii laga rabay qolada hore shaakiriin bay ahaayeen waqaliilun min cibaadiya shakuur baa ilaahay qisadooda ku tilmaamaya dabeetana nicma alcabdu innahu awaab baa lagu tilmaamay isna wuu sabray innaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu innahu awaab baa isna ilaahay yidhi waxaanu hellay isagoo mid sabraya ah nicma alcabdu innahu awaab idan labada imtixaankaa doonto gal kii kastoo kaa soo horbaxa waxaa lagaa rabaa inaad xaqiijiso derajada ah nicma alcabdu innahu awaab haddii faqri iyo gaajo iyo amni darro iyo dhibi ku soo marto inaad sabirtaa loo baahan yahay ilaad ka gaadhisa nicma alcabdu innahu awaab haddii magac iyo maamuus iyo xoolo iyo sulto iyo waxaana ku soo maraan iyana imtixaan kale un inaad shukri noqdo abaalkeed marisaa baa lagaa rabaa ilaa aad ka gaadhisa mansilada ah nicma alcabdu innahu awaab idan waxaynu leenahay dunidu aynu ku nool lahay waa imtixaan gebigeedba nabluukum bishari waalkhayr bay taagantay ambiyaduna waa dadka ugu badan ee imtixaanka la geliyey ee nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid yahay ambiyada imtixaanaadka oo dhammi soo mareen isagoo laga xoog badan yahay oo saxaabadiisa hortiisa lagu tumayo lagu garaacayo uu soo maray isagoo xoog badan oo sulta iyo power haysto dowladdiisu xoog badantay oo dadku afwaajan diinta u soo gelaya wuu soo maray waxay idhahdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxamedi imtixaanaadka dhammaantood wuu soo maray ay imtixaan aad sheegata bay leeyihin haddaad siirada nebi moxamed akhrido waad ku arkaysaa wax u dhigma ay imtixaan bini aadam uu sheegtana qur-aanku taariikhda uu ka warramaya ambiyada waad ku dhex arkaysaa maalan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam fitnatu lqariib buu soo maray dadkii u dhowaayoo lagu imtixaamay isagoo rasuulah oo ilaahay soo diray oo dadka khayr u sheegaya ayaa dadka kuwii ugu dhowaa beeniyeen abujahl iyo abulahab iyo quraysh iyo tolkii ugu dhowaa adigoo wanaag sheegayoo lagu leeyahy waa kadaab waa beenaale ama waa saaxir ama waa caynkan lagugu tilmaamayo ilaa xad intay daba galaan adeerkii uu daba socdo oo markuu isdhaahdo cid la hadal uu idhaahdo anaa wiilkan adeerkiiyo waxba ma oga waa sixirroole iska dhaafa haddii adeerkaa ku daba galo bal adigu qiyaas adeerkaayoo aabbahaa la dhashay oo kaa weyn hadduu ku daba socdo oo midhkaad sheegtaba cagsigeeda uu sheegayo uu leeyahy ka yaranagaa dhalayoo waa adeer baanu ahay waxna kama jiraan waxa uu sheegayo yacni cidhidhigaad dareemi lahayd intuu leekaanaya kii kuugu dhowaa markuu xadkaasi kaa taago ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo dejiyey qur-aanka markaa laynoogu tilmaamayaa imtixaanaadkaasi wax lagaga gudbo oo ay ka mid tahay inuu qalbiga bini aadamku cidhiidhigaasi aanu dareemin
cidhiidhi kastoo aad dareemto wax lagaga caafimaado alaslu qur-aanku wuxuu tilmaamayaa alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub ilaahay xuskiisa in qalbigu ku dego nusuus badan oo qur'aan iyo xadiisiba way soo arooreen markaa masaa'il badan oo noocaasiya ka warramaya bitafsiil salliga nebiga ka mida kuwa laakiin waxaan u dan leenna inaan maanta ka hadallo التصبيح فقط تصبيح erayga macnihiisu wax weeyaan subxaan allah markaad leeday ilaahay baad xumo ka hufaysaa bay odhan jireen culamada soomaaliya ama si kale haddaynu u tilmaamno waa tanziihu rabbi can الnaqaa'is waa ilaahay subxaana wa tacaala aad ka nasahayso ka fogaynayso ceeb oo dhan ilaahay uma cuntanta baad leeday waxa naqsiya oo dhamme ilaahay uma cuntamo ilaahay kamaalaadkuunbaa u cuntama alxamdu lilaahi baa markaa ah ilaahay oad kamaalka u sugayso ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy markaa walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun markii ilaahay ka soo warramay istihzaa ay qur-aanka ku sameeyeen ilaahay kitaabkiisa ku sameeyeen rabbi gaalnimaday ka gaaloobeen waxay xumo sheegayaan ilaahay abuurto waxa ay ka sheegayaan nebigiisii ay waxaa ka sheegayaan dadka waxaan ka sheegayo qariibkii iyo dadkii ugu dhowaaya ayaa ilaahay wuxuu leeyay fii suurati alxujaraat walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk waa ognay baa ilaahay yidhi in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay kugula hadlayaan iyo waxay alle ka sheegayaan ee adiga waxa la rabo fastac bima tu'mar waacrid cala almushrikiina inaa kafaynaaka almustahzi'iin aladiina ilaahay wuxuu soo sifeeyey waxa ay samaynayaan dabeetana waxaa la yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk waa ognay in laabtaadu cidhiidhiyoomayso ee fasabbix bixamdi rabbik wa kun min asaajidiin